maanta haween haddii Djibouti ku nooshahay ee dhibaato la kulanto wasaaradda way timaadaa shaqada haweenka loo qabto meel kasta way jirtaa haween Djibouti ku nool ee dhibaato la kulmo albaab kasta iyo xafiis kastaba wuu furan yahay laakiin ka ugu horeeyay u tagaan waa ururka haweenka taa waa ugu horeysa weeyaan ururka nabdeeda waxa ka shaqeysa qof avokaay iyo loo qaataa haweenka kolkay dhibaato la kulaan haweenka iyo gacanta qabsada xuquuqdooda weydiista taa waa ugu horeysa weeyaan ma xafiiskeena noqotay xafiiska wasaaradda waxa jira qayb khaas oo haweenka iyo caruurta wuxuu qabata reer Djibouti noqdaan reer Djibouti ku dhashay u dhalanin baa haween iyo ilmo yar hadduu baahi u leeyahay baahidu waxay noqotaa caafimaad noqoto iskool noqoto warqado noqoto guri noqdo dhibaato kastaba noqoto way noo yimaadaan xafiis baa jira xafiiska hadduu wax ka qaban karayo saddex qof baa ka shaqeeya warqado la eegaan haddii waxay doonaan ha noqdo warqadaha iskoolka kuwa jaamacadda dhigta oo yimaadiin waxay weydiistaan waxaan ka qaban karnaa waan qabanaa waxaan ka qaban kareena wasaaradaha kala wada